warkan waxa uu ahaa mid aan farxad u ahayn ehelada qoyska uu ka soo jeedo Bilaal Bulshaawi iyo dadka jecel madadaaladiisa badankeen waxaynu u qaadanaa wax iska caadi ah marka aynu maqalno ka hadalka shakhsi lagu xiray Somaliland sabab la xiriirta Soomaalinimo iyo calanka buluuga ah sheekadan waxay taabanaysaa Bilaal Bulshaawi oo ka mid ah dhalinyarada reer Muqdisho ee aadka loo jecel yahay madadaaladooda marka la joogo mareegta TikTok waxa uu leeyahay neenaasta madaxweynaha TikTok oo caan ku yahay oo ay dadka badi u yaqaanaan muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa waxa uu dhabahaan yahay wiilka lagu xiray caasimadda Somaliland ee Hargeysa ee Bilaal Bulshaawi ama madaxweynaha TikTok dhacdada la yaabka leh ee uu wiilkan sameeyay ka hor intii aan la xirin taasoo soo dadejisay in xabsiga loo dhaadhiciyo Somaliland miyaa hoyga xabsiyada mise calanka buluuga ah ayaa wax gabi ahaanba dhibaato ka samaysan inta aanan ka hadalka sheekadan gudagelin fadlan haddii aad jeceshahay guusha qof walba oo ku hadla afka Soomaaliga like sar muuqaalkan una share garee asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga وجدين شاه أو عليه سمي علنك الصومالي كقبو سيدا جدا وعلنك الصومالي واي sheekadan ayaa taabanaysa Bilaal Bulshaawi oo kamid ah dhalinyarada loogu jecel yahay isticmaala barta TikTok waxaana uu leeyahay magac saameyn leh oo ka turjumaya waxa uu qabto waana madaxweynaha TikTok wiil ku soo caan baxay saameynta muuqaalada isagoo jooga dugsigiisii sare ee waxbarashada وعكلا تكشدنتا عند درسكيك كلا كعسنت بابا بحيشتا ويساكنيو ورنيو عند خيال جوجينو اي باش مسودش اي انا العمله اسود هذه بقى صارت وعكلا عمامدا لما هيسن كرو ilma adeerayaal ma af Soomaaliya ku hadashay ma bajoq kala meesh ku haysiin af Soomaali adeer kuwaas af Soomaali lama yiraahdee waa in dugsiga barashada farta Soomaaliga niila geliyaa Hargeysa ayaa lagu xiray waxaana jirta sabab weyn oo soo dadejisay xariga wiilka dhalinyarada ah ee booqashada ku tagay Hargeysa Bilaal Bulshaawi waa la xiray sabab la xiriirta muuqaalkan idin muuqda isagoo maqaayad Hargeysa ku taala ka dalbaday shaah loona soo sameeyay shaah midabkiisu yahay buluug oo calanka Soomaaliya ka turjumaya kaas oo xidigtana dhexda ku leh waxaana muuqaalkaasi uu ku baahiyay barta TikTok الله تعالى وبركاته أصحابك سوول بويداون سويد سلامي waxaan joogaa magaalada Hargeysa hore iyo ugu sheegay wili Hargeysa joogaa waxaan dhex fadhiyaa maqaayadda ugu sheegay magaalada Jumeera waa u jeedin shaah oo cali soo sameeyay calanka Soomaaliya ku qabo sida u jeedaan waa calanka Soomaaliya waaye waa u jeedin waxaan dhex joogaa Hargeysa maqaayadda Jumeera dhex fadhiyaa caawa iyadaan ku qoranahay meeshaan ku baashaloyna Hargeysa si qurux badan loo soo dhaweeyay ee ugu horeysa Jumeera marka waxaan ilaahay idinka ku soo dhawaada aad ma satiin Hargeysa saacadaha kadib muuqaalkaasi baahintiisa waxa xabsiga Bilaal Bulshaawi u dhaadhiciyay ciidamo ku hubeysan dareeska ciidamada Somaliland si loogu ciqaabo qaladkiisa ah in si aan walwal lahayn uu calanka Soomaaliya ugu dhexbaaxiyay gudaha Somaliland isagoo waliba jooga maqaayad Somaliland ku taala waxa kaloo jirta su'aal kale oo miisaan loo noqonaysa ma isaga ayaa qalad ka leh mise shakhsiga maqaayadda ka shaqeeya ee sameeyay shaahan calanka Soomaaliga ah haddii uu calanku kaliya dhibaato yahay soomaysan ahayn in la xiro qof walba oo ka dambeeyay la sameeyo shaaxaasi isaga iyo waliba qofka kale ee shaaxa soo sameeyay Bilaal Bulshaawi waxa lagu haystaa la shaah calanka Soomaaliya ayuu ku cabaal Hargeysa dhexdeeda kadibna xabsiga loo taxaabay ya ilaahay yaqaano islaam warkaas maruma Hargeysa waa idin salaamaya gob dhash waa yaabana laakiin waxa leeyahay ahaanteeda walaalkay Bilaal Bulshaawi friya Allah la siiday ninkaas waa wadana walaa ujeedada muuqaalkan ma ahan in dhammaan dadka Somaliland aan ku tilmaamo kuwa ku faraxsan xiritaanka shakhsiyaadka kaliya haddana ma ahan kuwa bilowday waxaa muuqaalkan aan ku cabirayaa dareenkayga ku aadan wiilka dhalinyarada ah ee isagoo holmaameedkiisa iska wata la xiray isagoo aan lahayn qalad weyn oo lagu ciqaabi karo lama oga waqtiga uu xabsiga ka soo bixi doono walina ma jirto hadal ka soo baxa shakhsiyaadku uu xiran yahay Bilaal Bulshaawi haddii aad ka xuntaa xariga noocaani oo kala ah like sar muuqaalkan una share garee asxaabtaada magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga